deegaanka gacan libaax oo hoos yimaada gobolka Maroodi Jeex kana mid ah deegaanada hodanka ah ee ku yaala gudaha Soomaaliland waa goob ay soo dalxiis tagaan dadyo tiro badan oo ka yimaada wadamada kale ee jaarka la ah Soomaaliland iyo kuwa ku sugan gudaha dalka waa deegaanka labaad ee loo dalxiis tago ee ku yaala deegaanada hoos yimaada Soomaaliland deegaankani gacan libaax waxa ku nool dad tiro ahaan kooban xayawaanka noocyadiisa kala duwan sida duurjoogta iyo dabjoogta deegaankani waxa kale oo ku yaala dheer oo deegaan ahaan loogu magac daray waa gacan libaaxe deegaankani waxa ka baxa dhirta noocyadooda kala duwan oo qaarkood ku kooban yihiin deegaankani biixi maxamed cilmi waa oday ahaan weyn kuna nool deegaankani muddo ka badan 55 sano waxa halkan uga dhisan gurigii uu gali jiray markii dawladda Ingiriisku xukumaysay deegaanada Soomaaliland taariikh ahaan wuxuu noo sharaxayaa waxyaabaha deegaankani hodanka ku yahay iyo taariikhda cajiibka ah ee ku duugan marka Ingiriisku wuxuu keeni jiray mar dadkiisa qafiifa ayuu buuti keeni jiray markay wiil joogaan bay noqon jiray saaxi inaguna keeni walabay ku sii deerina ma suuqa halkan looga sameeyo wax kii hore Ingiriiska halkaa ka dhisnaa jiray wuu iga ciiray markaa dawladdeena qabsatay kiiba dumiyo kabaan dabad dhistay haddana hay roobka soo qabta xagga cimilada marka laga eego wuxuu leeyahay muhiimad aad iyo aad u badan buu leeyahay waa kaymaha roobka soo qabta waa kaymaha ay ku jiraan xayawaano kala duwan oo wadankeena ka sii dabar go'aya imika buurtan waxa ku nool goodir baa ku nool oo halka galabtiin xagga u soo daadiga subaxdiina habeenkii xagga u soo daadiga halkaas seexda oo kaymaha ku jira ayaa ka buuxa waxa ku jira bayrac bahalaya xayawaano aad u qaaliya oo xayawaanada sii dabar go'aya ayaa dhulka aad arkaysan ku nool deegaankani gacan libaax waxa hadda ka socda mashaariic horumarineed oo ay xukuumadda Soomaaliland kor ugu qaadayso goobtani dalxiis Maxamed Ibraahin Aadan Qabyatire wasiirka qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland oo taariikh ahaan xog ka haya deegaankani ayaa ka waramay waxa uu deegaankani kaga duwan yahay deegaanada kale ee ku yaala gudaha Soomaaliland waxa arkaysaan quruxda iyo wanaagga meesha ka muuqda halkan waxa ku nool waxyaabaha mucjisada ah waxaan islahaa goodir lagama helo Soomaaliland laakiin waxay noo sheegeen namada meesha shaqaalaha ka jooga inuu goodir ku nooliyay shabeel baa ku nool ugaadhii faraha badnayd inuu weynay baa halkan buurta gacan libaax ku nool waxa kale ku nool oo ma kamid ah dhirtii dabar gooday qaar fara badan oo iminka aan lagu arkayn Soomaaliland inteeda badan ayaa halkan ku xayramadkiiba ah dayibkiiba ah waxa dhir fara badan oo aad u qurux badan baa ah waxa as dawladahan afarta bilar ee dawladdu leedahay aanu ku soo koobnay wasaaradda qorsheynta eenu ka duulo bilar kamid ah ayaa wasaaradda deegaanku markaan aragnay faa'iidada iyo inay muhiimtay in deegaanka dib loo soo celiyo dadkeena waxaan kula talinaynaa dhir fara badan baa ka muuqata wanaag fara badan iyo neecaw baa ka muuqata isbedel baa xataa noloshaada soo galay marka timaado kulli dalxiiska mar iyo laba oo ku soo noqon doonaa dhulka aynu leenahay inta deeman qaale macdan dhigay ilaahay innaga dhammaanay waa Cabdisalaan Axmed Caawad Cabdi Jermani Bulsha TV deegaanka gacan libaax